ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka daraawiishta Jubbaland ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliyay deegaano ay hoos tagaan degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose waxaana ciidanka ay howlgalka ka fuliyeen deegaamo ay ka mid yihiin Arare, Kamon iyo Bangeni halkaas oo ay ku burburiyeen saldhigyo maleeshiyaadka gobolkoodu uu sii dhacayo ee ugus ku lahaayeen taliyaha ururka shanaad guutada 16aad ee ciidanka Commandoska Danab Gaashaanle Xasan Aadan Ciraaqi ayaa ka warbixiyay howlgalka ay ka sameeyeen deegaanadaasi. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Ciidamada Soomaaliya guud ahaan waxaad arkaysaan sida ay ula dagaalamayaan nimanka cadawga. Waxa weeyaan ciidamada halkan ku sugani waxay halkan waajibka saaran ee madaxda dalku ay bixiyeen bay gudanayaan. Runtii shaqadan socotana waxa weeyaan laba waji bay leedahay. Wajiga koowaad waxa weeyaan in muxuu ahaa aagaga muxuu ahaa ciidamadu ay difaaca kaga jiraan oo la xoojinayo oo runtii waxa weeyaan anagoo maaragtay ballanqaadkan horay muxuu ahaa u ballan qaadnay anagoo muxuu ahaa fulinayna waxaanu u diyaar garownay sidaanu muxuu ahaa goobaha maaragtay cadawga uu ka iman karo inaan xoojino taasoo waxa weeyaan saraakiisha iyo ciidamada dhammaan ay isla qaateen in waxa weeyaan nimankaas ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku haya sidii looga hortagi lahaa ayadoo oo fikirkoodu mar walba uu ku salaysan yahay waqtiyada la cibaadaysanayo ee ummadda Soomaaliyeed ee ummadda Islaamkuba ay muxuu cibaadaysanayaan inay muxuu dadka dhibaateeyaan midda labaad waxa runtii waxa weeyaan ciidamadu ilaa waqtigan hawlgal bay ku jiraan hawlgalkaas ciidamadu waxay ka wadaan goobaha muxuu sida khaaska aan ugu tuhunsannahay inay muxuu ka iman karaan saacadan hadda aan idin la hadlayo ciidanku wuxuu ku maqan yahay waxa weeyaan muxuu meelihii ma garanaysaa ee aanu muxuu kaga warhaynay nimanka cadawga goobahaasna waxa kamid ah magaalada Koban meesha la yiraahdo waxa weey Arare iyo waxa weeyaan wixii ma garanaysaa area-daas oo dhana annagoo mar walba target garaynayna madaxdooda saraakiishooda ciidankooda inta la shaqeysa ee muxuu hadii la yiraahdo sirdoonnimo kula shaqeysa dhammaan target bay noo yihiin waxa weeyaan muxuu cadawga banaanka ka jooga midka gudaha ku jira ka daran ka gudaha ku jira waan la soconaa goobaha uu muxuu hadii la yiraahdo ku sugan yahay hadii uu muxuu ahaa bulshada ummadda Soomaaliyeed uu la noolaanayo welcome baan leenahay hadii laakiin muxuu uu dhibaataynayo ummadda Soomaaliyeed kuwa qoriga wata ee banaanka joogiya asaga muxuu aanu marka hore ka bilaabaynaa taana waxa weeyaan kuwa gudaha joogan u diraynaa kuwa banaanka jooga waxa weeyaan waxa inoo ballana haddaad muxuu ahaa systemka dawliga ee ummadda Soomaaliyeed ay u socoto aad diyaar u tihiin waxa weeyaan idinkoo waliba shaqo adag la idinka qabtay baad imaanaysaan hadii laakiin muxuu aad dhibaatayntan iyo muxuu duurkan aad muxuu ummadda Soomaaliyeed ku leynaysaan mar walba ay hadafkiinu ka yahay ogaada anagu waxaan diyaaruna ka ugu dambeeyo inaanu soo dilo intaana waxa weey ummadda Soomaaliyeed baan la wadaagaynaa ugu dambeyn waxaan leeyahay dhammaan ciidamada Soomaaliya ee ku sugan gobolkan Jubbaland waxaan leeyahay nimankaas sida aynu isaga dhicin lahayn sidii aynu muxuu ummadda Soomaaliyeed uga qaban lahayn amniga muxuu goboladan muxuu inaga saaran xilka sidaan u gudan lahayn goobaha ay joogan inaad weerartaan hawadana waa laga muxuu bartilmaameedsanaya dhulkana waa laga bartilmaameedsanaya insha Allah taala waxaan leeyahay nimankan waxa weey in la iska qabto mooyaan xal kale oo leeyihiin ma jiro Sharmaarke Mahdi Cabdi idaacada codka ciidamada qalabka sida magaala xeebeedka Kismaayo.